baanu kaga hadlayno baan ka hadlayaba waxa weeye mawduuca ah odayada iyo culimada iyo waxgaradka u hadlay jaraa'idka la yidhaahdo hubaal la yidhaahdo hubaal ninka lagu eedaynayo ay ku eedaynayaan odayada iyo ciddii jariiraddaani sidaa ay tahay ilaahay ba xaqiiqada og laakiin saa annagu sidaa u hadasheen ee arrinkana u qabtaan ee u dhigaysaan idinkoo ah waxgaradkii iyo culimmadii iyo cuqaashii uu ka soo oo cunaysa lagaga hadlay intaasoo cuqaalaya intaasoo haddii lagaga hadlay waxaanu leenahay haddii aanu nahay waxgaradkan iyo cuqaashan beeshan annagu markii hore kamaana hadlin waxaasena soo kiciyey 4-5 jeer oo aanu muraadi ka aragnay waxaana u dambaysay aan siraynu ka hadlayay arrintaasi markaa way ka tagtay markaa wax kale ujeeddo kale ayay xabaarsan tahay baanu leenahay annagu waxaanu leenahay waxaydan janano dhaleecaynin oo aydan mid madaxtooyada kale ka shaqeeya u dhaleecaynin waxa weeye arrintani waxa weeye nin aan qabateen oo inta afduubteen aan cidla ku figayseen oo haddana idinku keenteen oo xukuumadda u dhiibteen arrin ma garanaysaa ayay hargeysa xabad fooda la iskala dhici hanjabaad baanu aragnaa annagu hanjabaad baanu aragnaa cid kale u hanjabaysaan ma aha arrintu malaayna kane meel kalea ku socotaan baanu leenahay annagu dee sheekha asiira sheekh albeledka magaalada ayaa dadku dee caynkaas u daahayo dee sheekhaan la sheegi jiro saasoo sheekh albeledkiibu ahaa weliba isagaa isku magacaabay weliba asiira ninka la leeyahay sheekh dir baanu ahaa argeyse laba sheekho waa haddii uu noqday maanta qabiil noqday dee wallahi nusqaan baa ku taala